السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسر دواد السنس 24 markaan waxaan ka hadlaynaa casharadii ku saabsanaa electricity-ga casharadii kan ku horeeyay waxaan ka soo hadalnay waxa loo yaqaano current iyo waxa loo yaqaano voltage marka current waxaan waa flow of electron qulqulka electronada waxa la dhahaa current-guna ma qulqul sameeyno hadii aysan jirin two differences potential difference laba godo potential differences aan lahayn hadii aysan jirin ma dhacaso current flow oo electronada ma soconaya mini flow of electrons ma dhacaya sababtuna waxa weeye hadii aan haysto ma taqaanaa laba shay oo biyo ku jiraan oo isku level jooga biyo aan rabo biyaha labada meel ay qulqulaan mini ma qulqulaan mid weyn u sareeyaa midna hooseeya taas dadka waxa la dhahaa mini waa potential difference inuu jiro oo kala dhaxeeya labadaas mini biyood sidaas waxa noqon taas waxaan nidhi waa waxa loo yaqaano voltage marka markii ay dhacdo current flow iyo two different magalasa voltage-ka waxa imaanaysa waxa loo yaqaano resistance-na waa iska caabin ku imaanaysa flow of electronada marka resistance maxaa tahay resistance wax kale maaha waxa weeye waa opposite to the flow of electric current flow of electric current in a circuit marka circuit-ka ma taqaana opposition-ka ka imaanaya ma taqaana flow of electronada ku imaanaya electric circuit-ka waxa la dhahaa electric current in a circuit waxa la dhahaa waxa loo yaqaano resistance marka markii electronada ay qulqulayaan iska caabinta ku imaanaysa iska celinaysa oo magaranaysa xadidaysa electronada waxa la dhahaa resistance okay resistance waxa jira form fara badan oo resistance ah jira oo ah mataqaana qaabka loo sameeyo waxaan ku xiran tahay waxa qofku sameeyo haduu machine sameeyo iyo haduu mobile sameeyo haduu computer sameeyo waxyaalaha loo isticmaalo resistance form fara badan baa loo sameeyaa marka tawo caansan oo noqon hadda waxa weeye waa resistance kan ama tan waxa loo yaqaano resistance ma taqaana fixed resistance la dhaho ma taqaana badana la isticmaali ku jira ma taqaana computerada hore ku jiray waxa ku jireen waxa loo yaqaano platinadii hore waxa ku jira power supply-da ku jiray kuwana oo badan oo ku jaban sida loo sameeyo marka tan iyo resistance-na ku jiray marka tan waa bar la isticmaali jiray oo kale waxay ku jireen computerada hore ama magaranaysa khashnayaasha hore waaweyna ku jireen tan oo aan ku arkay هذا عندنا ما استعمال هذا هذا عندنا ما استعمال سداس أو ما بدنا صار استعماله تن وحوي وبتشام متر حوي تنا قاعد تقول لك نسيت مقلنا سمرنا يرينا سمر بدنا نسيت مقلنا سا بتشنا متر waxaa jira oo kale physical resistance oo kale waxa ku jira power supply iyo bilaas ku jiraan iyo ganaqatada riska iyo badana ku jiraan resistance waxa jira form fara badan waxaan ku xirantahay waxa uu isticmaalaysid marka waxa kula jira matqana kuwa ku xiran light-ka oo kale photo waa ku baajira kuwa ku xiran kuwa kulliyaha ku xiran baajira la baajira waxa loo yaqaano positive temperature coefficient iyo negative temperature coefficient oo ah kuwa matqana xilliga qabow gudbiya iyo kuwa xilliga kulliyaha gudbiya marka labaduba way jiraan marka waxay ku xiran tahay waxaad isticmaalaysid kuwa jira ku xiran magaranaysa voltage ku xiran baa jira marka hadda waxaan tusiyay clear formka ay leeyihiin marka formka far badan bay leeyihiin marka formkaas inaad ogaatid un baa muhiim laakiin inaad qeybtid muhiim maaha waxa jira ma taqaana catalog aad ka kartid waxaad u baahan tahay laakiin markaas aad waxay sameynaysid haddaan ka soo hadlo marka resistance-ka calaamadahooda marka resistance-ka badanaa calaamadan cidina ma isticmaasho bari hore la isticmaali jiray oo waliba magaranaysa wadamadan Mareykanka iyo Ingiriiska badanaa waa isticmaalaan meelo buugagta ku arkaa laakiin أنا أنت electricity ديجاني مورجي علامات هذا حقوريس لكن برجع لا قورش هذا علامات اللي نستعملها resistance كحلو يقانا fixed resistance كان بدري كنا fixed كا وحلو يقانا علامات صلوا قرا اللتر كله سو قابت الله سو قابين represent اللتر هذا ده حرفه تاجين هذا current وكله مقلنا أي باو تاجن سو حنون إن شوارم وكله voltage كفي باو تاجن ما ندي resistance كان باو تاجن marka resistance ka markay aad taaganta kon tan hadii waa bashashka ka hadlay waatan aan ka hadlay tan calaamadooda waatan taas loo qoraya marka mid calaamad bay leedahay marka potentiometer waa taas aad bedeli kara sanaan waxa xasta motor kadina xada motorkaas inaad gacanta ka muujiso dhaqso u socdo dhaqso inuu tartiib u wareego marka taas calaamadaas oo ku xidhi kartaa labadan hadda waa koona waa thermistor waxa weeye kuwa kuleeliyaha waxa jira labada laba xabo midna waa xilliga qaboobaha buu aad gudbiya xilliga kulliga gudbiya marka waxa hadda ka sheeganay positive iyo negative bay kala yihiin marka NTC iyo PTC bay kala yihiin kana waxa weeye faristorka waxa weeye kuwa ku xiran ma taqaana hadir uu waarta uu badana wadamada qaar ku waxa balbalnasa uu waxay u taagantahay ma taqaana voltage marka hadda uu waxay ku xiran tahay uu bay isku magaranaysa ku tahay related la xiriirda marka
كون وكو كحرسن وحلو يقانو voltage depend on the voltage هدو بطو إلا بدنا صديق لون يرانس marka intaas weeyaba mataqaana waxa loo yaqaano resistance hadda some effect baa jira oo ma garanaysa resistance-ka saameeya maxay ku resistance-ka waxa saameeya resistance-ka shay waxa saameeya kow horta waa dhererka oo tusaale kale haddaan guriga hadda 5 mitir ama 10 mitir haddaan dhigo mataqaana hadda guriga degan tahay oo kale hadda guriga gidaashiisa dambe aad rabtid inaad ku xirtid koronto macnaheedu waxa ma garanaysa oo 10 mitir maganaha ah macnaheedu resistance-ku badanaya marka dhererka ba resistance-ka saameyn ku leh waxa kale saameyn ku leh waxa loo yaqaan cross sectional area ma garanaysa wire-kaas cross sectional area haduu wire-ku uu yiraahdo cross sectional area yiraahdo electron ma mari karaan electron badan ma mari karaan sidaa darteed waa inaad iska eegtaa marka laakiin hadii uu bato cross sectional area-kuna electron fara badan ma mari karaa marka taasna saameyn bay ku leedahay maxaa kale saameyn ku leh waxa kale saameyn ku leh shay wax uu yahay material-ka ka samaysan tahay marka material-ka resistivity waxa weeye material walba waa la eegay 20 grad baa lagu eegay oo 1 mitir shay walba macnaheedu shay walba 1 mitir baa laga soo jaray kadib 20 grad baa macnaheedu kuleelkooda meel yahay baa lagu eegay inta ay tahay resistance-keedu sidaa darteed marka waxa loo qoray table baa loo qoray table-kaasi markaas ku jira marka resistivity-ga shaygaas marka waxa kale saameyn ku leh temperature laakiin hadda temperature uma baahnin oo iska diinana in temperature hadda uma baahnin laakiin hadda saddexdaas aan qaadanana waxa loo yaqaano dhererka wana kow cross sectional area oo shaygaas cross sectional areas iyo material-ka resistivity-ga shaygaas leeyahay marka hadii inta haysto calaamadaas aan ku heli karaa waxa loo yaqaano resistance waxaan ku heli karaa resistivity-ga oo lagu dhuftay dhererka oo lagu dhuftay area-da inta waxaan ku heli karaa resistance-ka material shaygaas waxa ma garanaysaa aan haysto marka resistance-ka badana cross sectional area waxa lagu dhibaa badana millimeter okay resistivity-gana magaalada shaygana meter baa lagu dhibaa waxa loo ohm oo lagu dhuftay meter baa lagu dhibaa marka sidaa darteed ohm oo lagu dhuftay meter kuma shaqeyn kartaa adoo millimeter haysta midna meter haysta sidaa darteed waa millimeter wada bedelataa sidaa darteed baa xakaran waxa ku soo qortay hadeer iyadoo millimeter ah yani aluminium copper silver oo ah ohm oo lagu dhuftay millimeter square oo loo qaybiyay meter macnaheedu table baa jira table ka soo qaadanaysa marka sidaa darteed waad u bedelanaysaa haye haddii aan hadda tusaale ahaan oo kale aan tusaale bixino waxaan haystaa tusaale ahaan oo kale waxaan ku qorayaa halkan tusaale ama example taas ceshay cover baan haystaa tusaale ahaan oo kale waxaan haystaa markaa lenge oo ah 50 mitir markaan 50 mitir haysto waxaan kaloo u baahanahay markaa dhererka waan haystaa waxaan u baahanahay waxa loo yaqaano cross sectional area iyo resistivity-ga waan haystaa waa intan xagga igu qoran resistivity-ga macni cover okay inta markaan haysto macni waxaan u baahanahay cross sectional area-du waxa jira hadda electricity taqaan waxa jira waa 0.5 baa jira 1 baa jira 2.5 baa jira waxa jira 4 baa jira 6 baa jira marka shaygu si kale waa weynaanaya macnaheedu kufay magaca cross sectional area marka tusaalahan waxaan soo qaadanaa hadda tusaalahan oo kale cross sectional area 2 baan qaadan 2.5 baan qaadan karnaa 1.5 baan qaadan karnaa 1.5 millimeter square marka hadda millimeter square baan haystaa haddii aan laakiin cover resistivity-ga haysan lahaa ohm oo lagu dhuftay meter macnaheedu iskuma shaqeyn karo haddaan xaggan meter haysan lahaa halkan millimeter square haysan lahaa sidaa darteed waa inaan u bedeshaa millimeter wada bedeshaa sidaa darteed aan hadda millimeter ugu soo bedeshay marka haddii aan haddaba ka shaqeeyo waxaa la yiri waxa soo saartaa resistance-ka soo saar baa la yiri haye waxaan odhanaa markaa xalin ama solution xalintu maxay noqonaysaa formula-keena inoo soo qaadaysaa ana qaanay formula-keena bas inuu bedelaysaa waxaan odhanaa resistance-ku waxaa la mid ahayd resistivity-ga shayga oo lagu dhuftay dhererka oo loo qaybiyay area-da haye waxaan haystaa markaa resistivity-ga shaygaas waxa uu ahaa cover haye cover calaamada inta 0.0179 ohm millimeter ama xagga hoose aan ku qoraa xagga hoose mini plus baan haysanaa marka xagga naga tir xagga hoose aan ku qoranaa plus baan haysanaa xagga hoose kadib waxaan odhanaa mini 0.0179 ohm oo lagu dhuftay millimeter square
haddaba mitirka hoos baan dhigayaa oo lagu dhuftay dhererku wuxuu ahaa 50 mitir loo qaybiyey mitirka haddana waa mitirka xaggan ku jiray mitirkaas xaggan soo dhigay hoos soo dhigay okay oo lagu dhuftay 1.5 millimeter square marka sidaa darteed hadda waxa isku goosanaya millimeterkaasi isku goosanaya mitirkaasi isku goosanaya laakiin haddii xaggan mitir ahaan lahayd xaggan millimeter ahaan lahayd kuma shaqayn kara saa darteed baan uga jeeday inaan qofku fahmo marka hadda mitirkaas iyo kaas waa isku goosteen kaas iyo kaas waa isku goosteen haddii aan isku dhufto markaa intaas 0.0179 iyo content dadku 1.5 oo qaybiyo waxa ka soo baxaysa resistance-ka R oo ah 0.59 oo ah ohm calaamada ohm intaas resistance-ka ku soo helaya haddii aan haysan lahaa markaa shay mataqaanaa laba micnihii laambad oo kale micnihii fiilo meel tegaysa kadibna kasoo laabanaysa intaan baa laba ku dhufan lahaa moogta intaan baa laba ku dhufan lahaa ansarkaas laba ku dhufan lahaa ama micnihii formalkan haysana laba ku dhufan lahaa marka saasa ku saaraya marka casharkaas ku jirna casharkeena markaas micnihii assalaamu calaykum